بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود بعدا قيبتان يرو أيضا قابن وأن كبرنينو سك أنجل هدي لغسيو محيلا اكتاي هدي لغنه سيداد أصو سارن لهين هدي أن فيرنو كالكوليتر كا مهلي كرنو هدان ويدنو سك ديس أنجل أن إقوال دهنو وح إنو سو بحايو ونو شيغايو بجرتو محيلا كالكوليتر كينا وحو يقانا كليا the three basic functions بس أيو يقانا أو ساينكا كوسكا إيا تانكا saddexdaas function oo asaasiga ama basic ah bis ayuu yaqaana kuwan waa qaybihii drivedka ahaa oo waxay ka dhasheen saddexdii base-ka ahaa ay ka dhasheen then ma yaqaano marka anaga saa u soo saarano waxaan isticmaali doonaa functionskii trigonometric functionska aan soo qaadanay ayaan isticmaalaynaa oo maxaa lagu heli jiray sin cos tan cot sec cosecant mid kasta wixii lagu heli jiray ayaan dib u fiirinaynaa kadibna qaacidooyinkaasi ayaan ku shaqeyn doonaa horey waxa u soo baratay saddexda aan sheegnay function oo three basic functionska aan sheegnay mid kasta wuxuu lahaa reciprocal ayaa u lahaa mid kasta waxa jirtay mid reciprocalkiisa ah oo loo qaadan jiray oo kale waxay ahaayeen sin cos tan cot sec cosecant sida ay ahaan oo waxa la dhihi jiray tanka labadan waxay isku yihiin waa reciprocal midba midka kale bedelkiisa waa la qaadan karaa cos iyo sec midba midka kale reciprocal u yahay sin-ka iyo cosecant-ga midba midka kale wuxuu u yahay reciprocal ayuu u yahay ayay ahayd marka mid kale booskiisa waa la qaadan karaa oo haddii loo baahdo oo kale cot waxaa lagu heli jiray 1/tan ayaa lagu heli jiray oo booska tanka waxaa la qaadan karaa cotka 1/tan ayaa la qaadan karaa haddii loo baahdo sec oo kale sec waxaa lagu heli jiray 1/cos sec booskeeda waxaa la qaadan karaa ama sec lagu sarifi karaa 1/cos booskii sec waxaa la qaadan karaa over coskaasi ayaa la qaadan karaa ama lagu shaqeyn karaa anaga hadda maadaama hadda sec una weydiiyey waxaan leenahay sec reciprocalkeeda muxuu ahaa sec reciprocalkeeda wuxuu ahaa 1/cos ayuu ahaa maadaama 1/cos uu ahaa then waxaan leenahay su-aasha mar kale dib inoogu soo qor su-aashu waxay ahayd sec 5pi over 6 ayuu ahaa booska sec waxaan u qaadanaynaa cos angalkana isla angalkii nooga dhig 5pi over 6 waxaan soo helaynaa marka hore cos 5pi over 6 waxa ay la eg tahay si aad u soo hesho marka hore ogsoonow bayda tirada ku dhacsan oo tiradan ah tiradaasi waxa ay kuu sheegaysaa quadrantiga waaxda la joogo ayaa ay ku sheegaysaa ee ha ku shaqeynin marka aad shaqeynayso waxaa leedahay sida casharadii form 3 ah ku soo baratay 5 kaasi iska qari 5 kada iska qariso maxaa meesha kugu soo harayo equal dheh mar kale coska soo qaado 5 ka iska reeb hadaa 5 ka iska reebto meesha waxa kugu soo harayso pi over 6 pi over 6 table ka ayaa ka fiirinaysaa pi over 6 qiimaheeda maxaa waaye this angle waxa hadda reference angle waaye degree ahaan teeda wuxuu ahaa 30 degree ayuu ahaa cos of 30 degree waxay la mid ahayd radical 3/2 ayaa ay la mid ahayd waxaad u soo laabanaysaa marka quadrantiga waaxda ayaa u soo laabanay 5pi over 6 waaxdee waaye waaxda ay tahay waxaa ku ogaanaysaa hadhow 5ka ayaa waxaa ku dhufanaysaa pi over 6 hadda waxaa ka soo baxday 30 degree waa labadan haddii la isku qaybiyo 180 haddii 6 loo qaybiyo waa 30 degree 30 degree ayaa waxaa ku dhufanaysaa 5 3 times 5 waa 150 degree waa 150 haddii la fiiriyo waaxyaha waxay dhacaysaa waa waaxda labaad waxay ahayd 90 degree ilaa iyo 180 degree ay ahayd haddii aad fiiriso haddana dhammaan waxa ay ku noqonayaan calaamadaha saa u soo saarato waxaad dib u xasuusanaysaa all students take calculus ama all students take chemistry sharcigii ahaa sida xasuuso si aad calaamada u soo saarato waxaad rabtaa adigu waa coska waaxda labaad muxuu ku yahay oo quadrant 2 waaxda labaad marka la joogo sin-ka kaliya ayaa plus ah inta kala wada minus waa then marka coskeena wuxuu qaadanaa minus ayuu qaadanaa waa minus radical 3/2 waa then hadda qaacidadaada soo qaado waxa leedahay sec 5pi over 6
equal qaacidadan ku shaqeey waxa leedahay 1 over coska angle-ka oo ah 5 pi over 6 equal soo qaado 1ka waa soo qaadanaysaa cos 5 pi over 6 hadda ayaa soo saartay cos 5 pi over 6 qiimaheedu wuxuu yahay waa minus radical 3 over 2 si aad marka inta u sii furfurto kor iyo hoos waxa ku dhufataa qaybtan reciprocal keeda 2 over radical 3 both sides labada dhinacba ku soo gara equal inoo soo qaad 1 hadii lagu dhufto 2 over radical 3 waxa ku soo baxayso 2 over radical 3 labadan qaybna isku baxayaan radical 3 move 2 move 1 waaye waxa ka soo haraysa meeshaas ka soo baxayso minus 1 ayaa ka soo baxayso minus 1 kan hadii qaybtan kore lagu garaaco waxay noqon lahayd minus 2 over radical 3 ay noqon lahayd fraction kaaga waa ka mamnuuc in radical uu hooseeyo noqdo conjugation ku sameey kor iyo hoosba isla asaga ku garaac kor waxa ku garaacaysa radical 3 hoosna radical 3 ku garaac minus kan hadii plus kan uu ku dhaco waa minus 2 hadii radical 3 lagu dhufto waa 2 radical 3 hadii radical 3 lagu dhuftana 3 ayaa ka soo baxayso then waxaan dhahaynaa sec 5 pi over 6 qiimaheedu wuxuu leeyahay minus 2 radical 3 over 3 ayaa ila eg tahay waa